bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso mudan inaynu ku cibro qaadanno. qisadan ayaa waxay dhex martay gabar Maraykan ah iyo wiil u dhashay dalka Morocco. wiilkan ayaa wuxuu ku noolaa dalka Maraykanka, hase yeeshee wuxuu ku noolaa duruuf adag, mana haysan wax dhaqaale ah. maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu soo koray wiish isaga oo markaa u socdo dhismo dabaqada 7 ku yaala. markii uu soo koray ayuu wuxuu la kulmay dhowr qofood oo saaran wiishka. dadkan ayaa waxaa ka mid ahaa gabar yar oo aad u qurux badan, hase yeeshee gabadhani jirkeeda si wanaagsan uma asurneen. wiishkii markii uu dhaafay dabaqada 3 ayaa dadkii saarna ka degteen, waxaana halkaa ku soo haray isaga iyo gabadhii oo kaliya. gabadhii waxay dareentay cabsi, balse wiilkani wuxuu ahaa wiil diintiisa ku adag. gabadhani waxay iska ilaalinaysay wiilkan inuu soo dhawaado xumaan uu ku sameeyo, balse wiilkani xitaa ma uusan fiirinaynin. markii uu wiishkii gaaray dabaqadii 7 ayay ka soo wada degteen. wiilkii waa iska dhaqaaqay. gabadhii waxay la yaabtay wiilkani sida uu yahay ruux ay ka muuqato akhlaaq wanaagsan. kadib gabadhii waxay u yeertay wiilkii, waxayna ku tiri, ma aragtaa sida aan u qurux badanahay? markaasuu wuxuu ku yiri, maba fiirin wejigaaga. waxay ku tiri, markii aan saarneen wiishka maxaad xumaan igu sameyn weysay? wuxuu ku yiri, diintiida ayaa iga reebtay inaan wejigaaga fiiriyo, iska daa inaan xumaan kugu sameeyo. gabadhii aad ayay ula yaabtay, waxayna weydiisay diintiisa. kadib wuxuu bilaabay inuu u sharxayo diinta islaamka. gabadhii aad ayay u qanacday markii uu sheegay diinta islaamka, waxayna ku tiri, ma ii ogolaanaysaa inaan kula noolaado oo aan isguursano? wuxuu ku yiri, diintaadu maxay tahay? waxay tiri, waxaan ahay gabar mushrikad ah. wuxuu ku yiri, diinteeda iima ogolaanayso inaan isguursano. kadib waxay tiri, waxaan ogolahay inaan soo islaamo. diinta islaamka ayay soo gashay. sidaa ayuuna wiilkii ku guursaday, noloshiisana isku bedeshay. wuxuuna alla subxaana wa tacaala ku arsuqay hanti fara badan, wuxuuna helay nolol uusan ku fikirinin. qisadan waxaynu ka faa'iideynaa, haddii aad alla dartii xumaanta uga tagto, wuxuu alla kugu bedelayaa waxyaabo badan oo wanaagsan oo aadan ka warqabin. arrimahaagana wuu kuu sahlayaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskraib dheh, gamaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaal cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.